السلام عليكم أصحابتنا قالي كوحدة جنالكينا استمتركو فاميلي ولاشين هاني باكو iyo xaajigeeda Alpasaninaal. oo idin leh Soo dhawaada. muna malag adigana maxaa dheh hooyo soo dhawaada dheh ama soo dhawaada dheh afka qabsashaal ma jirto soo dhawaada muna malagna iidana videogana la duubasa asxaabteena muddo badanaa kala maqneen baya uzun oluyor ya. Vallahi Ma gubatay hayvan. bayağı uzun oldu ya. Epeydir yani oturup da video çekmeye vakit bulamadık. Fırsat bulamadık. Böyle biraz zaman geçti. Olsun. Wax kale maahan waxaa idinkaga maqneen xaajigayga wuu shaqeeya waa ogtiin anigana waqtiga oo asaga imaanayo batriga iga dhamaanayo habeenkii waa iska xanuunsanaa laakiin hadda alxamdulilah waa fiicana nabadeyda ahay wax ma qabo bini aadana liya waa lana xanuunsanaa maxaa loo xanuunsanaana malaa ilaahay dambi dhaaf ha nooga dhigo marka maanta aan fursad u helnay inaan idin soo hor fadhiisano bugün fırsat bulduk video çekmeye için. Soran oldu mu? Neredesiniz siz filan diye. Evet. Merak eden var mı? Merak eden var. Yani dadna weydiin soo weydiiyey ini aaway nadhaha ma jiraan uu yiri ha dad oo soo weydiiyey haniya maxaa ku daaro qof walba way soo wareysataa khayr Allah siiya asxaabteeda iyo faniskay kulligiin waa idin wada jeclahay Thank you very much. Thank you very much for asking to us. I'm appreciate to you. Thank you very much. Muna malagaan dhibayso saxaaway raal noqdo. Muna Melek have got sleep. She don't listen to us now. She close her ears. Lagaa laga xiro way aabaheed yaaniga. Kaalo it's of salaani dadka ka. Kaal soo fadhiistay. Thank you very much for all followers and non-followers concerned about us. I'm very happy about it. Thank you very much. Marka asxaabe maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax kale maan horta marka hore karaal noqday xogaa munimalaga iyadana dabeecada maalmahan ka bedelanay minugtee aabaheedna haddana ma joogo way sii suuroonay marka ma fahantiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax kale meesha ma soo fadhiisanin waxaan rabnaa inaan ka hadalno dadka Turkiga jooga wacyigelin inaa video wacyigelin iskar wacyigelin ahaan yani video ka soo hadal kiriyaasha guriga dadka Soomaalida qaarkood iyagoo wax fahansanin waa laga faa'iideystaa marka waxaan jeclay sida maanta videoga inaan kaga hadlo guryaha la kireysanayo qaabka u kireysanaysid waxyaabaha aad rabo muhiimadda inaad iska kontrooshid waxyaabahaas rabnaa marka inaan ka hadalno aniga xaajigayga wax kale ma usoo fadhiisan halaas waa marka waxa idinku dhaano inaan idin sheegno aan jeclaystay videogan hadalladaas dacwadahaas mar hore ay imaadeen ee la yidhahay haniya noogala soo hadal dadka kala hadal dadka wacyigeli u sheeg laakiin fursad waa u heleynin maanta fursad u helay inaan idin soo hor fadhiistaa videoga idin duubo bugün şey konuştuk sözleşmeyi kiralaya ev kiralamayı istiyorsa önemli olan bakmayı yerlere yapacaksın. Her şeyi konuşacağız bugün. Evet. Öyle konuşmayı için. Olur tabii konuşalım. Çünkü because too many people live in some problems with their house owners and too many problem we hear about it. We have to say something about it. Maybe somebody don't know in Turkish laws and how which rules to renting house and they don't know about it and some problems they can live and we have to talk about it. Inshallah we will give some good information for Somali brothers and sisters in Turkey. First of all, you have to look you want to rent a house. You have to good look the house.
if there is any some problems in the house, you have to say and write down to contract about the problems. If you don't write, you can leave some problems with your house owner. Uh, Sometimes, generally, so many people renting house with the house with furniture. Too many things in the house, and you have to look all of the things in the fixtures. You have to look fixtures. For example, heaters, furnitures. I'm so sorry about my English. uh, all of the things in the house you have to look. If you say something, and you have to look these things with your owner. House owner must be look and see and write down to the contract what problems. If you write the contract, there is no problem in the future. You can be feel good. But if you every time everybody want to rent a house quickly and sit and live in the house quickly, but this is very important thing. First of all, you have to look very good look, and then after a good contract, after you can be feel good. waxaa waaye guriga markaa kiraysanaysid awal shii anaga horta Soomaali haddaan ahno waa degdeg badanna aada u degdeg badannahay wallahi waa dabci ilaahay noo dhaliyabo marka hore ko waxaa iska fiirinay guriga si fiican iskaga fiiri aad kiraysanaysid hadduu eber yahay waxaa fiirinay hektarkaa fiirinay geeda biyaha kululeysada iska fiirinay waxaa iska fiirinay armaajooyinka oo jikada iska fiirinay musqusha iska fiirinay musqush yara iska fiirinay haddee meel ka jaban yihiin haddee waa dhici kartaa inay jaban yihiin ninka guriga iskale wuxuu ku qoraa waraaqda contractiga wuxuu ku qoraa guriga see ku gashay hadhow markay ka baxaysa saasay aan ka rabaa ee iigu soo wareejiyay aa ku qoran contractigaas marka adiga waxaa lagaa rabaa waraaqda inaa intaadan saxiixin ka hor guriga inaa wax walba iska fiiristo hadduu hektarada shaqaynaynin waa qori hadduu kululeysada biyaha oo shaqaynaynin tubada hadday jaban tahay hadday musqusha jaban tahay markaas waa kula heshiine haddaa u qortid halaana guriga ka halaysan waa sameynaa lacagta kirada iiga jar ama sameysaa iigu samey sidaan ku galaa yacni hadal la isla ogyahay dhib ma keenayo ma ahan saas marka hore waa inaa sameysaa dadka kale guryaha oo diyaarsan oo alaabta wada taalo firaashan yihiin guryaha firaashan dadka galaayo kiraysanayeen waxaa laga rabaa adigana adigoo walaal qaali ah dhagahaagii amaahin guriga waa inaa waxaa iska fiirisaa kuraasmanka qolalka jiifka ah qolka kale oo martida yacni laba qol iyo saaladiis haddaa kiraysanaysid makiinada alaabta inay way taalaa mararka qaarkood oo lagu kireeya idan makiinada dharka dadka oo guryaha oo firaashan ijaaranayo idinka waxaan igal rabaa dadka kale guriga eberka oo guriga oo firaashaneen oo ijaaranayo intay fiirinayaan saddex jibaarkeeda inaa idinka iska sii controlshin sababtoo kuraasta waa fiirinaysin hadda wax ka qaldan yihiin kuwa qadada iska fiirinaysin qolka jiifka armaajooyinkiisa iska controleysin alaabta kale guriga oo saabitka ku ah ama guriga ku dhex yaalo sida hektarka oo kale armaajooyinka oo jikada oo kale kuwaas waa sii fiirinaysin musqusha qubeyska haddee waxaa ugu dara albaabka qubeyska la xiranayo kale mararka qaarkood waa jabaya waa jaban yahay ninka waxyaabo qaarkood kugu qayaani karaa jiro laakiin waraaqdaas waxaa ku qoran guriga qofka suu ku galo gurigeegu wax ka halaysan ma lahan suu ku galayaan ka rabaa meesha kuugu qoran marka inaa iska controlshin oo si fiican iskaga fiirisin mideeda kale Soomaali haddaan hanane waxaa kaloo wacyigelin oo rabaa inaan kasii bixiyo meeshaan guryaha nadaafada waa nagala soo dacwooda aad aan ugala soo dacwooda iyo qeeladeena ziyaado waay marka waxaa rabaa dadkeyga aniga afkeyga fahmayo oo ila dhashtay oo dadka iigu sukeeya maanta Soomaalida aan la hadlaa please idinkoo mahadsan waa inaa ixtiraamtiin horta meesha ku nooshin waa awal shay waa in la ixtiraamaa awal shay cimaarada degan tahay dadkan qeylo ma ogolo subaxii 5 subaxnimo ay kacaan ama 12 subaxnimo ay kacaan shaqay aadayaan
waxaa laga yaabaa 12 saac galabnimo ama 5 galabnimo inuu kasoo baxo ama habeenka halkii 7 fiidnimo ama 1 saac oo habeennimo yacni maalintii oo dhan يعني ساعات بدن إنه شقي قفك مركز أقساس إحنا ضد كان سجالك هبيني ما طبعا كهبيني بوجه فان ما فهمتين هدا أنت ده أنا كمركز ضد كانوا يحققون هاي هبين كردون ولا زوجي ده ما أنت كردون واجد جفنا هبين كردون إلى وايك بريا واسك شكلنا واسك قلة سيدا ما لنا وقلا ورقمنا مرة مركز دريس كاحترام قولي أنا احترامتي وواجب كسرنا ديجا مثل كلا وحكى هلا ضد كمركز waxaa kaloo ku wacyigelina baabuurta markaa korno kale qeyladana iska yareeno qeyladan Erdogan maalin laxdas video ka hadlaya arkay dadka Soomaalida hadda waxa xoog loo saaro Soomaali loogu hayo maxaa mataqana dadka naga soo dacwood hadii diris ahaalid waa naga soo dacwoodeen hadii kuwa baabuurka saarnay ahaal hayo way naga soo dacwoodeen marka dacwo badan dhankeena laga tabanaa oo la gudbiyay marka bulshada macaamil sida loola macaamilnaayna in la qadariyo jidka idinkoo socotiinna dadka hortooda candhufta ku tufina oo marka candhufta feesta candhufta inaad tuftid geedka agtiisa candhufta ku tuf ama mandil inta ku tuftid meesha qashinka iskaga shub yani ama meel gees inta istaagtid candhufta iskaga tuf dadkii socda candhufta hortooda ku tufina waxaas wax fiican maahan dadka qaarkood way sameeyaan midada kale xanjada dadkeena 90% waxay u maleeyaan wax oo iska caadi anaga iska caadi uma isticmaalo aniga waaga iskuulka dhigi jiray macalinka dad waxa jireen oo yani oo iskuulka xanjada ku cunaay markuu arko uu nagu xanaaqi jiray wuxuu jiray sharmuutooyin maatiin hadaa xanjirtid inaan cuntid laamiga lagaaga baahan yahay ordabax ha ii imaan fasalka sababtoo in shareer aan wata macalinka qofku cunaayna uma jeedo maan laakiin xanjada dhashteeda iyo qashkeeda soo gaari jiray ساسا نقول وانا جري هايدا وحيجي جرت حنجة دارت جورجا كعن بنانك حنجتها كعنن جلات جورج كعن بنانك كعنن مركا احترامك قوي أنا كتد إيمان هان الإيمان إيمانك وحيابي دن أو لها دن كم دقنا هدي رنت الإسكوشيو رنت ضدك وياك حناجسا هدي إيمانك النظافة ده كم بدأ النظافة ما هي سنواي النظافة هي سنة عنك النظافة بالإيمان النظافة إيمانك كم التهاد حديثيا كورينيس أو كهرلايان مركز نظافة إيمانك برتكيس هو هي محل يجري حنجذا موفيعنو متى ذاك قبل هنا تاكسي ذا كرة هرو فريسنا إنما كشرموطة لقوا ملاي تاكسي ويا هرو فريسنا قداش يا بنان نين راك هراها فريستو نولش التركي أنت أنا كنول هي هرا أنت كفريستو وامر أو ugu qasbanta oo gadaal oo kala buuxsantay horo inaan fadhiisto waa laga yaabaa laakiin absolute ma dhacayso yani taxi iyo banaan inaan horo ka fadhiisto waxay u dhigantaa ma dhilata aday ma sharmuutaata waaya horo fadhiisanaani ninka muxuu yahay aan fadhiisana laakiin taxiga markuu gadaal ka buuxsamo oo 3 qof 4 qof oo kale gadaal 3 qof ee gasho kale adi boss oo kaaga banaaneen oo kale hore iska kor laakiin gadaashiyo banaan أنا كهرة فريسنا الصومالي أنا وحاس يعني وحياواس وكل ذات كان قلد وفهمن حنجد العناية إنه وحفي عن موضوعهم ببطاطا يعني أظن ناك جبر إيه أظن هويني إيه يعني كوما في عن جديد كنا حنجد ما أنت نقاش كلش كوسيس تركيا ولا يقهنا تركي الصومالي ذي جوكت أولوس كالي ماذا هيك الكناية شرمتوين كلا جم وعملها وعن سين إتاجين يكسلاي ناك جد كتاجن ولوك سان كسينة لوك تنقدر كسينة وين يسروحه حنجنا وعنا نينكم حكوا فعلا وتقانا حنجنا صوعنا يصير حركاتها سيسمينس إني شرموت تهوكو أنا سيب حنجنا مركب عنس سقس إني kadınlar kan ne anlıyorsunuz aşkıtım? Tabii dışarıda sakız çiğneyen kadın pek iyi gözle görünmez yani. Ne anlıyorsunuz Yani, ne mani? Evet tabii ne olduğunu yani sen söyledin zaten. Şerbuto derken de. Yani wuxuu yiri. Şerbuto biliyor bir. Wuxuu yiri yani naag jidka xanjo ku cunayso yiri anaka inda fiican laguma fiirnayo naag xuna loo aaminsan yahay. Anaka bu naag waagaan Soomaali joognay oo soo barbaaray aniga saasa u arki jirnay yani. naag xanjo jidka ku cunayso jidka taagan laamiga keeskiisa xanjo cunayso naag xuna ka aaminsanaan jirnay marka asxaabay dadkayga oo Turkiga ku nool marka xaaladda saas waaye guri hadaa iska ijaaranaysid iska kormeer mideeda kale nadaafadan ku dadaala xataa hadaadan nadaafada qabsan kartin waxaa jirta naag ku nadiifinayso waxo
$50 lacaga dhamayna kaa qaadanaya bisha hal mar ha ku imaato dariishadaha kaa tirta dariishadaha iyo dariishadayna isku mid maahan dariishada oo miyaarad ah waa lagaaga jeeda cad ah haddii wasaqoobaan xataa adiga xataa waxaa kugu dhacaayo ma aqaan aniga maanta dariishadaas hadee miyaaradda aan iska dhex arki waayo wasaq leedahay ma joogi karo ilaa aan ka tirtiro albaabkana waa cadiya haddee wasaq gaartan inaa dhaqa iska nadiifiya jecla war derbiga gabaraa ii joogtaan cunug yaraa ii joogto oo 3 jir ah haddee derbiga maanta dhan waa daba socda derbiga haddee wasaq ku qorto qalin haddee ku qorto waa tirtiraa sababtoo ma fiirin kari derbigii wasaq leh waa iska tirtiraa marka nadaafada ku dadaala ilmo yaryar haysatiin guryaha nin oo ishag oo guryaha kariya wuxuu yiri mataqaana wiil Soomaaliya naag wadatay waa u turjumaan ahaan ugu waday wuxuu yiri Soomaalidiin oo yiri su'aal idin weydiina muslim maatiin ها هو يرى أنا كمسلم أنا بقول مسلم أنا أو بقول هذا مسلم تينو يرى نظافة وايا نظافة أو لها لا دينو يرى مسلم كله محلوية قرا نظافة مية مسلم وانا هنا ده سينه سومالي هذا مركه هرب حال جاري قريها جاركو ونقعد كانه وحكي لنا مع نظافة دريدة وضدك نظافة دريدة كجبح حيوان marka haddii arday ay yihiin oo kale waxaa la dhahaa arday waa arday meel iskugu imaatay iyaga way arday hadday yihiin markaas oo kale way dareemi karaan laakiin family markii la dhaho familyga arday waa ka nadaafad badan yahay family arday isku mid ma noqon karo arday oo subaxii iskuul orday ama jaamacad orday subax 2 ukun hadduu meesha ku samaysto kaga taga war wiigi dhan wuxuu isticmaalaa meesha u saaran hadduu rabiyo laakiin family markuu yahay ma noqon karto أنا لكن دعلا هل قرن تسكي كريستانا دبي دع الله قصا فملكيا وحقه به مركا فملك نظافة له نوايرتاي قبليه مال اسكوبي ما نظافة له نوايرتاي نظافة هلو ددالو حنجعنس تبدلنا هالسكرا في الصومالية عيبها وأنا عيبين السين يعني حنجد العناية وحفي عن ما جدك العناية خيالات بدن يعني هدا اسكي أنا كجروب أنا كوكس على جدك حتى وحيرانينا أنا كلام هوكل marka waxyaabaha bulshada dhaqankana hala fiirsado dhaqamada xunxunna hanagala dhaafo haddii idinka naga dhaaftiin soo dadka bulsho oo wadanka ku nool wax u tiray sababtoo markii la dhaho Soomaaliya naga dhaaf Soomaaliha noo sheegin wayna dhibeen qeeleen ugu wareeriyeen ixtiraam ma yaqaan bulshada sida loo dhaqmo ma yaqaanaan markina loo Soomaaliya ma sha Allah wallahi way fiican yihiin Soomaaliya oo kala ma arkin markina loo laba kala tahay yani marka diyeceğim başka bir şey yok yani. Yani şimdi kiracıların da hakları var, ev sahiplerinin de hakları var. Var tabii ki. Yani şimdi kanunlar da var. Kanunlarda herkes hakkını şey yapıyor. Şimdi eğer kiracı olarak baştan her şey güzel şey yaparsan sıkıntı yaşanmaz. Ama işte sonra işte o zaman dedim zaten hani çabuk bir şekilde eve oturalım hani hızlı bir şekilde kiralayalım deniyor. Öyle yapınca acele edince de bu sefer şey yapıyor, problem yaşanıyor. Yani inşallah sabır lazım. We have to be patient and we have to respect the rules and the laws and the lessors' rights and tenants' rights too. Yani in Turkish law, tenants' rights and lessors' rights have got. Yani everybody can have rights. If you use your rights very well, you have to do good contract. This is the first thing. If you rent a house, the paint is good, everything house is clean. When the renting finish, you have to left the house when you rent the house. Paint and clean everything must be same yani. Inshallah, in Somali people, we love Somali people too much, and we want to good relationships with Somali people in the future too much. Please take care of us, and please take care of our rules and the laws. Inshallah, in the future everything will be good. We have to. These days is very important days for Turkey and the Islam people, because kafir big countries
want to the final. They want to hit final time. They want to collapse to our countries, and they want to collapse the Islam states. Inshallah, we have to careful, and we have to think about all the things, and we have to think good things, all of us. Turkish people loves you, and most of the Turkish people loves Somali people and the other refugees and everything. But some Turkish people not good. They are thinking very bad. Please don't take care of them, their thinkings, because not most of all. Some Turkish people have voice too much, but population is not too much. General. So thank you very much for listening. Inshallah, I tell you properly, because my English is very bad. I don't know. Am I talking? Maybe I'm speaking wrong. Yeah, I don't know. Inshallah, please forgive me. Please, I want to say good things yani. Yok ya canım, çok güzel konuşuyorsun. Teşekkürler. İşte hani yanlış bir şeyler de söylüyorsam kusura bakmasınlar yani. Lütfen, çünkü İngilizcem bu kadar yani. Ama bayağı ovu bitiremiyorlar ya. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. Bu ne? Somalili insanlar güzel bakıyorlar da ondan. Sen güzel bakarsan güzel görsün. Tabii ki. If you look good, you can see good. Somali people look very good to us, and they are seeing good things. Thank you very much. Thank you very much. Teşekkürler kocacığım. Çünkü onlar da çok seviyorlar. Evet, biz de çok. O Somali kızı iyi baktığı için onlar da sana çok seviyorlar yani. Onlar, kızı da bana güzel bakıyor. Teşekkür ederim. Hala yani. Soomaalida waxay ku jecel yihiin gabadhooda si fiican u fiirinaysaa. Sidaas darteed ay ku jecel yihiin. Iyadana gabadhooda si fiican yani iyi fiirisaa way yiri, mahadsan yihiin. Elhamdülillah, yani ben böyle bir güzel bir eş Allah bize nasip etmiş yani, ben bakmam da ne yaparım yani. Ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sana ve ailene teşekkür ederim. Sağ ol. Marka asxaabi videoga intaan kusoo gabagabaynaynaa. Inshallah haddaa xoogaa idinku xanaaqan raali noqda. Yani waxyaabaha qaarkood oo iga xanaajiyaan run ahaantii. Ani waxaa jeclaa mar walbaba dadkeyga in hadal fiican, waxyaabo qurxan. Yani dadka haddana anigoo og dadkeyga waxyaabo qaarkood, dadka dhan Soomaalideena dhan ma dhihi kari. Dadkeena qaarkood waxyaabo xun iyagoo sameynaya, haddana marka la dhaho ma aqbil dagaalaas ya, laakiin inay xun yihiin anigoo og, anigana taasaa ku xumahay naftigeyga. Marka laakiin labada dhinac inaa udhexeeya jeclaa, yani xaqoodana dadkeygana xaqooda inaa u dhacsho, iyakana xaqoodaasi dadkeygana xaqoodaasi. Marka waxyaabaha qaarkood nagu nacayo waxyaabaha hadda soo sheegaa kamid ah. Marka insha Allah dadka wacyigelinta aan hadda maanta aan soo jeediyay, insha Allah wacyigelintan way sii socon doontaa, waa saa u bilaabay noqon doontaa. Xataa waxaa soo gelin doonaa insha Allah afka Turkiga, xataa dadka waxay dhaheen noo soo geli waxyaabaha qaarkood ereyada dukaanka iyo inaan baranaa rabna, waa soo gelin doonaa hadduu alla idmo. Marka waxyaabaha badan aad rabtiin idinka, anigana mararka qaarkood marba waxaa hal inaa idinkaga soo qaadaan jeclaan doonaa hadduu alla idmo. insha Allah videoga xig intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo nabadiina kulanti insha Allah idinko caafimaad qabo, anigoo caafimaad qabo, anagoo caafimaad qabno kulanti dambe xiisa leh. Thank you very much for everything. Thank you very much for our followers and not followers. Thank you very much to all Somali people. aad awood mahadsantiin dadkeena aan jecelnahay, Soomaalideena, Turkey, wadan walaal wadanku ahaado, waa idin wada jecelnaa. waa mahadsantihiin dadkeena qaaliga ah oo nagu xiran YouTube channelkeena ku xiran, dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaa sida wacan oo noo dhiirigelisiin, waana ku mahadsantihiin. Bye bye. Bye bye.